Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta qiso aad iyo aad u cajiib badan. Aadan filanin waxa dhici doona ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo. Qisadan sina naxdin bay u leedahay. Qaybaha dambe ayay naxdinta imaanaysaa. Waa qiso aad iyo aad u la yaab badan. Intaan qisadeena bilaabin muuqaalka like noo saar, YouTube-keena xog baahiyana subscribe taabo. Qisadan waxay ka dhacday waddanka Masar, gaar ahaan caasimadda Qaahira. Qaahira dhexdeeda kama dhicine, baadiyaha ku hareeraysan Qaahira mid ka mid ah ayay qisadan ka dhacday. Qaahira baadiyaha ku hareeraysan mid ka mid ah waxaa deganaa qoys, hooyo iyo aabe iyo gabar ka koobnaa ay dhaleen. Gabadha magaceeda waxaa la oran jiray Sihaam. Qofba wuxuu caan ku yahay. Iyadu waxay caan ku ahayd lacag jacaylka. Iyadoo aad iyo aad u yar ayay lacagta jeclayd. Dumarkoo dhan baa lacagta jecel, laakiin dumarka qaar waxaa jira aan danaynba lacagba iyo waxaas aan danayn. Iyo dumar waxaa jira lacagta ku dhintaba. Sihaam waxay ahayd dumarka lacagta aad iyo aad u jecel. Heer waxay gaartay lacag jecel ay ka gaartay inay wax xaddo, tuugnimo ayay bilowday. Meesha awalba iyadoo baadiye ahayd dad kooban ay ku noolaayeen ayay tuugnimo ka bilowday. Saasay gabdhaha yararka ah dahabka iyo waxyaalaha lacagta iyo waxaasaa uga xadi jirtay. Markii dambe aabaheed waxay ku tiraahday aabbo waxa ay furtaa dukaan aan ka shaqaysto. Marka xoogaa yar soo weynaatay 9 jir 10 jir 11 jir marka soo leekaatay waxay tiraahday dukaan ii fur aan ka shaqaysto. Dukaankaasoo lagu iibinayo qalabka caruurta. Marka dukaankii baa loo furay, qalabka caruurta loo keenay, caruurta waxay ka gadan jireen toyga iyo waxyaalaha lagu ciyaaray ka gadan jireen. Dukaankaasi muhiimadda koowaad ay u furatay waa sax, waa inay lacag ka hesho. Laakiin muhiimad taa la mid ah baa jirta aan ka yaraysan. Waa in gabdhaha yararka u imaanaya ay dahabka iyo silsiga ka furato. Tuugnimadeeda inay halka kasii horumarsan bay u furatayba. Gabdhaha yararka ay u imaanaya ee alaabta ka gadanaya ayay dahabka ka furan jirtay, siliska bay ka furan jirtay. Mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ma ahane. Gabdha aad iyo aad u tiro badan oo yaryar oo iyada ka yaryar bay dahab ka furan jirtay. Lacagta dukaan ka soo gala 3 jibaar iyo 4 jibaar bay ka samayn jirtay dahabka ay ka furato gabdhaha yararka ah. Awalba meesha baadiye bay ahayd, meel yaroo tuulo ah oo baadiye ah bay ahayd. Waa la dareemay in gabdho badan dahab laga xaday. War tuugaa nagu dhex jira ee tuuladan ku nool yaa waaye. Waa la raadiyey, waa la raadiyey, waa la raadiyey, waa la waayey. Aniga gabadheeda dahab baa laga xaday, gabadheeda silsi yar baa laga xaday, gabadheeda jijin baa laga xaday dahaba, gabadheeda sanaa laga xaday. Tuuladii yareed ama meeshii baadiyaha ahayd waa la dareemay in gabdhaha yararka dahabka laga furanayo. Waxaa la tuugan magaalada ku dhoomanaya gabdhaha yararka dahabka ka xadaya yaa waaye. Waa la dareemay. Laakiin maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday gabar 9 jir ah ayaa Sihaam dukaanka ugu timaaday. Gabadhaani Sihaam way ka caqli badan tahay. Sihaam baa laga caqli badan yahay. Sax gabadhaas way yar tahay oo tabar ahaan way ka yar tahay Sihaam, laakiin way ka maskax badan tahay. Waxaa arkaysaa gabar aad u yar oo gabar ka weyn ka maskax badan baa arkaysaa. 9 jir bay ahayd gabadhaas u timaaday Sihaam waxay rabtay inay alaab iyo qalab ka gadato. Sihaam dahabkii bay ka furatay. Markay saa u furatay way dareentay in dahabkii laga furto. Awalka hore gabdhuhu ma dareemi jir yararka ah. Si tartiib bay uga furan jirtay. Laakiin gabadhan aad bay u maskax badan tahay. Iyadoo furanaysa bay ku qabatay. Waxay tiraahday maxaa dahabka iyo alaabay u furanaysaa? Tuuga magaalada ku noolba adiga waaye bay tiraahday. Markaas Sihaam way isku naxday. Waxay tiri armay ku sheegtaa oo ku fashishaa. Armay magaalada isgaartaa. Sihaam waa tuugada ugu weyn. Waa tuugadii caruurtii yararka ah siliska dahabka ka furan jirtay waaye. Armay magaalada isgaartaa. Markaasi maskaxdeeda waxaa ku soo dhacay go'aan waxshinimo ah, go'aan aadan filanayn. Waxay tiraahday gabadha intay ku sheegin bal dil kaba takhalus haba dhimatee. Gabadhii yareed bay dukaanka dhexdiisa intay ku qabatay ku ceejisay. Way ceejisay ilaa ay nafta ka baxday gabadhii yareed. Way ka tabar yar tahay, laakiin markii maskax ahaan la eego way ka maskax badan tahay Sihaam. Sihaam baa awood badan, laakiin maskax ahaan gabadha yarta ee 9 sano jirta baa maskax badan. Way qabatay way ceejisay ilaa ay gabadhii yareed ka dhimatay. Intay soo jiiday dukaanka Sihaam iyo gurigeeda wax badan iskuma jirin. Intay soo jiiday meel qashin ah ayay ku tuurtay gabadhii oo aan la arkin. God qashin ah bay dalaq ku siisay si aan loo dareemin. Waxay tiraahday caaway markii la gaaro oo arladu mugdi ay noqoto qashinka ka soo saar meelaha dhig ku soo aas meel fog geey. Laakiin inta caawa laga gaaray gabadhaas meesha ha ku jirto. Gabadha yarta ay Sihaam dishay magaceeda idiima sheegin baa filaya.
gabadha yarta ee 9 sano jirta ee la dilay waxaa la dhahaa Muniira. Marka hooyadii gabadha la dilay dhashay ee Muniira gabadha la dilay Muniira hooyadii dhashay way raadisay gabadheedii iskoolka waa ka timaad war xagee aaday gabadheedii intaas saacadood bay maqan tahay xagee ku maqan tahay gabadheedii way raadisay meeshu waa baadiye awalba meesha iyadoo yarayd ayay ka raadisay dad badan baa raacay waa la raadi meel kasta laga raadiyay waa la waayay markii dambe waxay isdhaheen war gabadhii sooma aadan Sihaam alaabso kuma soo gadaneen bal Sihaam aan u tagno Sihaam baa loo yimi waxaa lagu yidhaha gabar yar oo 9 jir ah oo alaab kaa gadanaysay oo Muniiro la yiraahdo kuu timaaday Sihaam waxay tiri anuu ma arkin gabar Muniiro la dhaho war adiga kuu timaada alaab baa ka doonaya bay tiraaday xagee gabadhii jirta anagu waa weynay wixii anaga gabadha ma aqaan markii dambe gabadha la dilay hooyadeed booliska meesha tuulada ah ayay ku dacweysay waxay tiri gabar baa iga maqan haleel raadiyo booliskii waxay bilaabeen in tuulada ay ka raadiyaan gabadha la dilay meel kasta ay galeen way ka waayay waxay dhaheen war xagee ku dambeysay gabadha markii ugu dambeysay xagee joogtay hooyadeed waxay tiraahday gabadheeda waxay aaday Sihaam alaab bay ka soo gadanaysay Sihaamna waxay tiraahday gabadha ay ma imaan booliskii Sihaam bay u yimaad waxay ku dhaheen gabar yar ma kuu timaad waxay tiraahday may ma arkin boolisku waxay ku dhaheen waxba ha biqin adiga kaama shakinayno gabar yar baa taa waxba ma dili kartid annagu adiga kaama shakisanine bal meeshii ugu dambeysay aadi baa raadinaynay bal adiga xagee aaday markay ka soo tagtay gabadha yareed xagee aaday Sihaam waxay tiraahday gabadha ma arag bay tiraahday anigu ma aragba markii dambe booliska waa iskaga yimaadeen gabadhii Sihaam ahayd iyagoo booliskii raadinaya islaam baa u timaaday waxay tiraahday anaa huba 100% waa huba in gabadha la waayay Muniira ay Sihaam la taagneed markii ugu dambeysay Sihaam bay la taagneed waliba dukaanka ayay wada taagnaayeen wada sheekaysanayeen markii ugu dambeysay 100% anaa huba inay Sihaam la taagneed haddana booliskii Sihaam bay ku soo laabteen waxay ku dhaheen war gabadha adaa ugu dambeysay baa la sheegayaa gabadha ma sheegtid anagu adiga ma shakasanin laakiin meeshii aadaa raadinaynaaye markii ka soo tagtay gabadhii Muniira ahayd xagee aaday Sihaamna waaba inkirtay waxay tiri anigu ma aragba marka booliska halkaas shaki baa ka dhashay waayo islaantu waxay leedahay markii ugu dambeysay Sihaam bay la taagneed Sihaamna waxay leedahay aniga gabadha ma aragba ima imaan bay leedahay marka haddii dhihi lahayd waan arko oo iga soo tagtay macquul bay ahaan lahayd laakiin ma arag bay leedahay marka halkaas shaki baa ka dhashay markii dambe booliska waxay ku dhaheen Sihaam soo bax meesha soo xir in keen xabsiga imow waa ku wareysanayna wareysi baa laga qaadayaa booliskii soo raacday booliskii way ku cadaadiyeen war gabadhii sheeg markii dambe ayay Sihaam qiratay in ay gabadh iyada dishay sababtay ku dishayna waxa weeye dahab bay ka xaday waxay ka baqday inay sheegto oo arrinka magaalada ay gaarsiiso awalba tuulada shaki baa ku jiray in caruurta yarka dahabka laga xado shaki baa ku jiray hadday sheegi lahayd waxay tiri waxaan ka baqay in lay ogaado in aniga tuugadii ahay markaas booliska waxay dhahay ma dahab badan baa haysaa haa waxay tiri qolkayga dahab aad iyo aad u badan baa ka buuxa oo gabdho badan aan ka furtay booliska waxay dhaheen inakeen qolka inagey aan soo aragnay booliska markay soo raacayeen gabadha si ay dahabka badan ay xadda u tusto booliska cadeen ahaan bay rabeen u aadaan laakiin markii guriga booliska ay soo galeen aabaha iyo hooyada Sihaam dhalay way isku naxdin markii soo galeenba wajigooda naxdin baa ka muuqatay boolisku way yaabeen ruuxda anaga halkan gabadha dahab bay xaday dahabka ay xaday barana ka soo qaadno gurigay taalaabay tiri marka guriga la galayna waa soo eegana marka aabihi hooyada waxay dhaheen maya guriga galin please waa ku baryaya guriga ha galinina iyada idin soo saaraysa dahabka halkaasi booliska shaki kala ku dhashay dilkan ka soo sokow shaki kale ayaa meesha ka dhashay Sihaamna gabadhii ay dishay iyo godkii ay ku riday booliska waa tustay iyagoo dahabka rabeen ka soo qaadaan ayaa aabihii iyo hooyadii booliska waxay u diideen in iyaga kaliya guriga ay galaan ay soo baaraan waxay dhaheen waa idin raacayna hadda galisaan haddii kalena iyada ay soo saarto dahabkay xaday halkaasi booliska shaki weyn baa ku dhashay markaasi askar badan baa meesha soo gashay waxaa la yiri gurigan tin iyo cirib ha loo baaro waxa la qarinaya baa jirta tin iyo cirib ha loo baaro gurigii tin iyo cirib baa loo baaray sidii muddo loo baarayay markii dambe waxayba arkeenba qol bilaa albaab ah oo bilaa daaqada bay arkeen ruuxa lagu yiri qolkan xagee ka gashaan qolkaani albaabna ma lahan daaqadna ma lahan maxay tahay qolka noocaan ah oo guriga ku dhex yaala waxaa la yiri qolkan waasaan maxaa xagee ka gashaan baa la yiri waxay dhaheen qolka kor baa laga galaa kor baa fuulaysaa halkaasa waxa ku yaala
wax yar oo go-an oo goobaabin ah baa laga gelaya, halkaasa gudaha laga galaa. weliba dee goobaabintaasi waxa weeye jingada laga sameeyo guryaha iyo laga sameeyo, waa taqaanaan baan filaya. jingada sooma lahan wax yaro oo ah oo goobaabina sooma lahan. goobaabintaas in leeg iyadii oo kale baa loo malayaa, goobaabinta in leeg baa kor loo qaadayaa, markaasa gudaha laga galaya. marka booliskii kor bay fuuleen, goobaabintii wixii meesha laga galayay bay soo qaadeen, ifkii bay ku ifiyeen. mise bismillah, meesha waxaa ku jirta gabar yar baa ku jirta. way naxeen, bismillah. gabadhii markii ifka lagu ifiyey way dareentay islaantii iyo odayga u imaan jiray inaysan ahayn oo dad kale ay u yimaadeen, way dareentay. markaasay ruuxda kusoo laabatay, waxay tiri alla ibadbaadiya, alla meesha iga badbaadiya, alla waa kaan meeshaana ku jiraa, muddo dheer baa ku jira, hala ibadbaadiyo. markii dambe booliskii meeshay gabadhi ugu galeen, waa la soo qaaday, gabadhii waa laga soo kaxeeyey meesha. markii saa looga soo kaxeeyey, gabadha wejigeeda waxa ka muuqda hadda arki lahayd waa yaabaysaa. naxdinta iyo walwalka iyo sidee lafa u noqotay, cuno yar iyo biyo yar baa la siin jiray, sidee lafa u noqotay waad naxaysaa runtii. gabadhii baa meesha laga soo saaray, labadii waalidna saldhiggaa la geeyey, waa la xiray. marka labadii waalid waa la wareystay, maxay tahay gabadhan aad meesha ku xarayseen, waa maxay, maxaa khaldan, waxa khaldan waa maxay? annaga waxaa raadinaynay gabadhiina sihaam gabar ee dishay, wayna tustay godkay ku riday gabadhii ay dishay, laakiin annagoo intaa raadinayna shaki waxaana galay markaad tidhaahdeen guriga yaa gudaha loo galin, ama annaga idin raacin haddaad galaysaan. marka shakigaasaana galay, marka saasa ku raadinay maxaa waaye qolkan bilaa albaabka iyo bilaa daaqada ah aad gabadhan ku xarayseen. midda kale qisada gabadhan ka dambaysa waa maxay, runta sheega baa la yidhaahday. odaygii wuxuu bilaabay qisada inuu ka sheekeeyo, qiso kale haddana meesha ka bilaabanaysa. odaygu wuxuu yidhaahday gabadhan aad meesha ka soo saarteen anigaa dhalay, aabbaheed aniga waaye. askartii waa yaabeen, bismillah, ma gabadhaadaa sida u cadaabaysa? gabadha tan waxays dhaheen ugu yaraan meeshan dhowr sano, 6 sano 5 sanoba ku jirta bays dhaheen. markaas wuxuu yidhaa gabadha tan magaceeda waxaa la dhahaa saamiyo, anigaa dhalay. gabadhan sihaam haddatan gabadha dishay hooyadeed intaan guursan ka hor baan saamiyo hooyadeed guursaday. markaan saamiyo hooyadeed aan guursaday oo saa iigu dhashay saamiya, way umul raacday maamadii oo way dhimatay. markaasi waxaa soo haray saamiye keliya ay soo hartay, hooyadeedna waa dhimatay. marka maamada dhimatay ee saamiye dhashay, hooyadeed saamiyena u noqonaysa ayeeyo, ayaa gabadhii yareed ku dhigtay. waxay tira ilaa wa ilaa gabadhan anigaa korsanaya, anigaa gabadhaa saamiyaa haysanaya, ayeeyaan u ahay, gabadhaydii baa dhashay, ilaa wa ilaa gabadhatan isii. markii ay isku adkaysay bay tiri waan u daayey. gabadhii saamiye ahayd waxaa korsatay ayeeyadeed, ayeeyadeedna waxay ahayd islaan hanti badan haysata. markaas gabadhii koolkoolis iyo alaab u soo god iyo ha kufin iyo ha dhicin ha jabin baa gabadhii loo kolkooliyey. nolol waxay gashay nolol tii ugu macaaneed, nolol raaxa leh bay gabadhii saamiye ahayd gashay, iyadoo xaalka ay ku sugan yihiin oo gabadha saamiye ah wax walbay u baahan tahay loo keenayo, wax walba oo maskaxdeeda kusoo dhacana loo iibinayo, maadaama ayeeyadeed ay haysato. ugu dambeyn qadartii alle baa timide, ayeeyadeed waa dhimatay. intii ayeeyada ee dhiman waa sii dardaarantay, waxay la dardaarantay wiilkeeda. islaantii waxay ku tiraahday wiilkeeda, hooyo, gabadhan saamiye ah abti baa u tahay, walaashaa macaan baa dhashay, marka anigana waan sii dhimanayaa, noloshaan ku koriya mid ka hoosaysa ha ku korin, waana kaala dardaarmaya. wiilku wuxuu yidhaa haye hooyo, aniga gabadha si fiican u korinaya. ugu dambeyn habartii waa dhimatay. wiilkii baa gabadhii saamiye ah kaxaystay, wuxuu damcay inuu korsado. aabbaheed baa u yimaada, wuxuu ku yidhaahday awalkii horeba ayeeyadeed baa isku dhajisay, inaan ka soo qaado waa ka xishooda oo madaxeeda ugu daayay, marka gabadhayda isii anaa korsanaya. ninkii wuxuu ku yidhaa waa gabadha tan hooya ay gala dardaarantay, waxay tiraahday kori. maya maya anigaa korsanaya buu aabbihii yidhaahday. gabadhiisi saamiya ayuu soo kaxaystay odayga, guriguu keenay. marka guriga waxaa jooga sihaam iyo hooyadeed iyo odaygan baa guriga jooga. marka gabadhii wuxuu ku yidhaahday eedadeed, waa kan gabadhan hooyadeed waa dhimatay, ayeeyadeedna waa dhimatay, marka aniga nala joogaysaa ee si fiican gabadhan iigu kori, hooyadeedna waa dhimatay. marka eedadeed buu u keenaya, ama aayadeed saa u taqaanaanba. calaa kulli xaal odayga gabadha wuxuu u keenay eedadeed. soomaalidan waa taqaanaa, waxay dhahaan eedda arxanlaay. inta badan eedooyinkaas oo aabbaha qabo, inta badan 90% waxa laga sheegaya waa wax sax ah. eedadaana waxay ahayd mid arxanlaay iska daaya tii ugu darneyd bay ahayd.
waxa dhici doona waa arki doontaa. Gabadhan yarta ah ee Saamiye ee guriga la keenay waxay aragtay inay ka firfircoon tahay gabadheeda Sihaam, inay ka firfircoon tahay bay aragtay oo ka qurux badan tahay. Timaha hadday noqoto, joog hadday noqoto, caddaan hadday noqoto, qurux hadday noqoto, aqoon hadday noqoto, maskax hadday noqoto, dhan walba waxay aragtay gabadhan Saamiye ah inay ka fiican tahay gabadha ay iyadu dhashay oo lagu magacaabo Sihaam. Intaa kadib eedadii gabadhaas ayay cadaawad u qaaday Saamiya. Wax aysan samayn bay odayga u sheegaysa. Waxay dhihi jirtay gabadhaada Saamiya waxaan bay samaysay, maanta tanay samaysay, dhibkeedaa batay, guriga lagama joogi karo. Odaygii bay ku dirtay. Odaygiina wuxuu ka aaminay gabadha inay tahay gabar aan la qaban karin balaayo ah. Maalin kasta eed iyo dhib joogto ah bay ka sheegi jirtay. Odaygu waa yaa war gabadha tan maxaa ka khaldan? Gabadha tan mukurkii baa laga soo badiyey, ayayadeed baa nolol raaxa leh ku soo korisay, nimcadaas iyo waxaas u baratay, mukurkii baa laga soo badiyey. Marka wuxuu ka yaabay gabadha tan maalin kasta laga soo dacwoonayo. Odayga habeenkii buu soo xaroodaa, habartu wax kale ugama sheekayso. Gabadhaada Saamiya maanta tanay samaysay, dariskay shiiday, maanta guriga waxaanay ka samaysay. Gabadhayda Sihaam baa ka fiican bay ammaanaysaa, Saamiyay caayaysaa. Sidii xaalka loogu jiray, gabadhii Saamiye ahayd waa u adkaysan weyday. Waa ogtahay gabar nolol raaxa leh ku soo kortay waaye, way u adkaysan weyday. Markii dambe way carartay, guriga abtigeed bay u carartay. Waxay tiraa abtiyow adaan kula joogaya. Odaygii waa yimaaday, war gabadhii aaway Saamiye ahayd. Waxay tiraahday eedadii, war gabadhii waa la waayay, maanta meel ay ka dhacday ma naqaano. Ma meelahaasi aaday, ma niman bay raacday, waa garan weyna gabadha meelay aaday. Odaygu waa raadiyey, meeshan waaba tuulo yar waay saan hore kugu sheegayba. Odaygu waa raadiyey, markii dambe wuxuu yidhaahday armay abtigeed aaday. Marka wuu aaday mise gabadha guriga abtigeed bay joogtaa. Wuu ka soo kaxeeyey, gurigiibuu ku soo celiyey. Waxay tiraa waa gabadha tan anigaa warkeeda hay, abtiin aaday waa ku gabanaysaa. Niman bay raacday, nimankaasay muddo la soo joogtay, habeenkaa ay maqnaydba nimankaas la soo seexanaysay. Markii dambe abti aaday, halkaas ka soo kaxaysa adigana. Gabadha tan anaa sirteeda dhan haya, waa gabadh isla wareegta ah, nimankay raacdaa, waa gabdhaha xunxun waaye. Micnihii cay uma reeban. Odaygii waa xanaaqay, odaygii dhis buu noqday. Isagana wuxuu ku xun yahay iskama hubinayo waxa loo sheegayo. Waxaan loo sheegayo ma sax baa ma run baa inuu iska hubiyo ahayd. Adi calaa kulli xaal gabadhii wuxuu yidhaahday guriga kama bixi kartidba. Eedadii waxay tiraahday gabadha iskoolka ay aadayso way ku gabataa, niman bay raacdaaye iskoolka ka jooji. Odaygan amarkeedii buu qaatay, iskoolkii waa ka jooji. Wuxuu yidhaahday guriga kama bixi kartid, haddaa ka baxdid anaa ku aqaanin waa ku garaaci doona. Maalin maalmaha ka mid haddana waa baxday. Eedadii waxay tiraahday gabadhaada isla wareegtay noqotay, armay gabadhayda Sihaam iga fadaraysaa, gabadhaada xunta ah ee Saamiya armay Sihaam iga fadaraysaa. Waxay tiraa anaa qorshe kuu haya. Haye qorshe waa maxay? Waxay tiraa guriga qol baan ka dhisanaa aad u yar. Qolkaasi albaab iyo daaqad u samaymayno. Jaranjaro la qaadanaya kor baa laga galaya, kor baa qolka laga galaya. Qolkaas baan ku xiraynaa, maadaama qolkaas albaab iyo daaqad midna uu lahayn, gabadhaas ma carari karto. Halkaasaa cunadeeda ka siinaynaa, waxay u baahanta halkaas ka siinaynaa, qolkaasaa ku jirto. Odaygana waa caaqo, islaanta warkeedii buu qaatay. Dhihi maayo waa gabadhaydii anigaa dhalay, see qol bilaa albaab iyo bilaa daaqad ugu xiraya, anuu mawaalan lahay. Dhihi maayo. Amarkeedii buu qaatay, qolkii bay sameeyeen, kadibna gabadhii Saamiye ahayd bay qolkii ku rideen. Halkaas mugdiga ah bay muddo dheer ku jirtay. Qorax ma arkin gabadhaasi. Quruxdeedii iyo nuurkeedii iyo wixii dhan waa suuleen. Intee bay halkaa ku jirtay baa is leedahay? Ma waxaa is leedahay 5 sano ku jirtay, ma 4 sano ku jirtay, ma 6 sano ku jirtay, intee sano baa is leedahay? Aamina maysid. Gabadha Saamiya qolka bilaa albaabka ay bilaa daaqada ah waxay ku noolay 10 sano. Halkaasi 10 sano ayay ku laqday qol bilaa albaab ah oo bilaa daaqad ah, qoraxdiina ay arki weyday. Cidna la sheekaysan mayso. Halkaasi isku buuq maskaxdeedii waa wareertay. Iyadaa isla hadlay sababtoo ah inaad qof la hadashid oo wada sheekaysataan intaasaa nimco ah. Intaasaa nimco ah Ilaahayna siiyo waaye. Laakiin ka warna haddii 10 sano aad cidna la hadlayn, meesha mugdiga ah ku jirtid, marka waa dareemaysaa halkaa dhibaatada kaa soo gaaraysa. Maskaxdii baa isku buuqdayba. Gabadhii markii askarta meesha ka soo saareen, aabbaheedna waxa uu sheegay qisadii oo dhan ka sheekeeyey odaygii. Odayga iyo islaanta waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarigaa lagu xukumay, maadaama gabadhaas 10 sano xorriyadda ka qaadeen, 10 sano qol bilaa albaab ah oo bilaa daaqad ay ku xireen, ay ciqaabeen. Ciqaabta darteed baa labadooda min 7 sano loogu xukumay. Gabadhii Sihaam ahaydna oo gabadha dishayna iyadana waxaa lagu xukumay xabsi daa'im baa lagu xukumay.
qisada halkaas kusoo dhammaatay waa qiso cajiib ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.